السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan waa idin salaama asxaabteyda qaaliga ee meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtaan waxaan ilaahay kusoo dhawaada janalkayga mar kale asxaabay maanta waxaan wadaa cabitaan laba nooce maasha Allah aan ugu talagala bisha Ramadaan maadaama ay nagu soo dhawday Ilaahay nabad nagu gaarsiiyo marka asxaabay waa kana ila arka sida uu sameeyay ka faa'iideyso waxaan leeyahay haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo dheh asxaabada sida arkaysan halkan waxaan ku haystaa qudaarta aan ka sameyn lahay cabitaanka soo liin macaan iyo waxaan ku haystaa baashoon cambo iyo beetroot marka waa ila arki doontaan sida aan isku raacsiin doono insha Allah soo ugu horeynta qudaarta ayaan soo jarjarayaa hadda asxaabay sida arkaysaan baashoonka ayaan soo jarjaray kadib waxaan ku soo shubay weelkan soo marka waa kaas isla socod wanaagsan aan ku haystaa hadda liin macaanti ayaan ku haystaa marka liinta ayaan qobka ka fiiqayaa marka waa kaas ayadana sidaas kulli sidaas aan ku soo dhameynayaa insha Allah soo waxaan rabaa hal mar qudaarta dhan inaan jarjaro oo markii aan jarjaro kadib fruitiska dhan marka aan jarjaro markaas kadib ayaan shiidayaa soo hal mar ayaan soo wada diyaarinaa jarjarideeda وكان أصحابي لينتا مركز سيدا سو دمي وكان مركز waxaan sameynaya hadda waxaan jarjaraya cambada marka waa kana asxaabay hadda cambada sidaas aan ku soo dhameeyay ayadana sidaas aan soo jarjaray marka waxa inoo haray beetrootka asiga ayaan u daba marinayaa leena asiga wuxuu leeyahay kalar uu leeyahay soo meelaha dhan ayuu qudaarta kala dhan ayuu kaga darsamaya soo marka asiga ayaan la waa kana asxaabay marka asiga ugu dambeeyo soo waa kana asiga ayaan jarjarayaa soo qobta ayaan ayar uga fiiqayaa asxaabe waa kana beetroot-ka ugu dambeeyay waan soo dhameeyay soo waxaan sameynayaa hadda liin macaanti ayaan kala bixinayaa inta aanan shiidin waa kana marka aan soo dhameeyay kadib waxaan sameynayaa baashoonka ayaan ka bilaabayaa soo baashoonka ayaan soo shiidayaa
biyo ayaan ku darayaa. soo marka waa kana waa soo shiidayaa. markaan soo shiido ayaan isku soo laabanaynaa insha allah. markii aan soo shiiday halkan ayaan ku soo miirayaa saa arkaysaan baashoonka. waxaan sameynayaa liinta ayaan soo shiidayaa, liin macaanta. marka hadda asxaabay liintii marka aan soo shiiday waxaan ku kormiirayaa baashoonka. soo baashoonka liinta waan isku darayaa. inshallah asxaabadana waa kana waa isku qasaynaa liintii baashoonka. waxaa rabaa si fiican ay isku dhex galaan. marka hadda asxaabay waxaan sameynayaa cambadi ayaan shiidaya hadda saa arkaysaan. soo waa kana beetroot-ka cambada hal mar ma isku shiidaayo, waan soo kala shiidayaa lianna beetroot-ka wuxuu u baahan yahay inaan miirto, laakiin cambada ma u baahno miiritaan, ma u baahno. waxaan shiidaynaa beetroot-ki. marka hadda waa kana mashiinta ayaan kusoo shubayaa. soo waxaan kusoo darayaa kadibna biyo, kadibna waan soo shiidayaa insha allah. hadda asxaabay diyaar waaye, waan soo shiiday. marka hadda waxaan kusoo gadinayaa, waxaan kusoo kormiirayaa cambadii. marka waa kana asxaabay saa arkaysaan. marka asxaabay markaan miira kadib waa kana si fiican ayaan isugu qasaya cambada inay si fiican isku dhex galaan iyo beetroot-ka ayaan rabaa. marka waa kana asxaabay dhiig yarida ayuu u fiican yahay, dhiigga ayuu soo celinaya beetroot-ka aad ayuu u fiican yahay. marka maasha allah asxaabay kadibna waa kana baraf ayaan kusoo darayaa. waa kana asxaabay waan kusoo miiray kadib waa kana waan isku qasayaa cambihii iyo siday isku galaan iyo beetroot-ki. maasha allah kalar qurux badan ayuu noqday, macaantiisana lagama sheekeyn karo. ku mahadsantiin sida quruxda badan ood igu xirantiin mar walba igu soo dirtiin fariimihiina quruxda badan. video ka hesha like, comment, share. haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo dheh. waxaan ii rajeynayaa farxad iyo caafimaad.